maxay tahay sababta dowladda Malaysia ay ugu dhaaratay shirkadaha Facebook iyo TikTok? dowladda Malaysia ayaa si adag ugu dhaaratay shirkadaha Facebook iyo TikTok kadib markay marar badan ka soo horjeesteen qadiyadda reer Falastiin. wasiirka isgaarsiinta waddanka Malaysia Fahmi Fadal ayaa yiri muuqaal walba iyo qoraal walba oo qadiyadda reer Falastiin lagu taageerayo oo lagu faafiyo Facebook ama TikTok iyo Facebook waxay isku dayaan muuqaalkaas inuusan dad badan gaarin ama qoraalkaas uusan dad badan gaarin wayna xanibaan. wuxuuna wacd ku maray haddii ay arrinta ka wantoomi waayaan inuu tilaabo adag oo sharciya ka qaadi doono labadaas shirkadood. Facebook iyo TikTok kaliya ma aha dhammaan shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda ayaa waxay isku dayayaan in ay qariyaan meeshana ka saaraan wax walba oo lagu taageerayo qadiyadda reer Falastiin loogana soo horjeedo xasuuqa ba'an Israa'iil ay ka wado marinka Gaza. Facebook xitaa wuxuu marayaa mararka qaar in aadan awood u lahayn in aad qortid ereyga Hamas ama in aad qortid kelmadda Tuufaanul Aqsa oo ah magacii ay Hamas u bixiyeen howlgalkii ay ku weerareen Israa'iil. xitaa mararka qaar dad ay Soomaalidu ka mid yihiin magaca Yuhuud ma qori karaan oo waxay ka baqayaan in akoonkooda Facebook laga xiro wayna soo gaabiyaan oo waxay qoraan YH. Facebook saddex qaab ayuu u ciqaabaa dadka qadiyadda reer Falastiin taageera. marka koowaad wuxuu isku dayayaa in qoraalada iyo muuqaalada aad faafinaysid aysan dad badan gaarin. marka labaadna ganaax adag oo asbuuciya ayuu ku kordhigayaa oo aadan waxba faafin karin waxna aadan soo qori karin. marka ugu dambeysana akoonkaaga oo dhan ayuu hawada ka saarayaa. dhanka kale shacabka dowladda Sacuudiga ayaa maalin dhaweeyay dowladooda waxay ka codsadeen in application-ka TikTok waddanka Sacuudiga laga mamnuuco. arrintan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii uu TikTok uu saaray muuqaalo ku saabsanaa olole looga soo horjeedo shirkadaha waaweyn ee Israa'iil taageera, yacni olole ku saabsanaa inaanan shirkadahaas waxba laga iibsan. barnaamijka caanka ah ee Al Jazeera ay leedahay ee lagu magacaabo Ma Khafi Acdam ayaa waxaa lagu wareystay mas'uul Israa'iiliya wuxuuna yiri Israa'iil waxay toos ugu amartaa Facebook in wax walba oo looga soo horjeedo ay meesha ka saaro Facebook. xitaa qof ay Israa'iil dishay oo Falastiiniya sawirkiisa hadduu saameyn yeesho oo dad fara badan ay ka falceliyaan oo dunida daafaheeda u gaaro oo internetka uu ku faafo, Israa'iil Facebook waxay ku amraysaa qofkaas ay dishay sawirkiisa in laga saaro Facebook. yacni xorriyad darradu meesha ay marayso bal eeg. lana soco dhammaan shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda waxay xarumo ku wada leeyihiin Israa'iil. Facebook oo kale xaruntiisa labaad ee adduunyada ugu weyn wuxuu ku leeyahay magaalada Tel Aviv ee Israa'iil. ogsoonowna mulkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg asalkiisu waa Yuhuudi oo awoowayaashiisa ayaa waxay ahaayeen Yuhuudi ka soo qaxday wadamada Jarmalka iyo Austria iyo Poland. dhanka kale maalmahan su'aal weyn ayaa waxay ka taagan tahay gudaha wadamada muslimiinta ah iyo caalamka Carabta gaar ahaan. su'aashaas oo ah war maxaynu annagu u samaysan laanahay social media noo gaar ah oo aan aragtiyaheena iyo waxaan aaminsanahay aan ku soo bandhigno, oo maxaan uga hoos bixi laanahay shirkadahan wadamada reer galbeedka iyo Israa'iil ay hawada ka haystaan. yacni maxaan sida Shiineeska oo kale social media noo gaar ah u samaysan laanahay. su'aal kooban haddii aan ku weydiiyo daawada adiga, wadamada islaamka iyo carabtu intay isku tashadaan ma aaminsantahay in ay sida Shiineeska oo kale ay samaysan karaan social media iyaga u gaara oo aragtiyadooda iyo waxay aaminsan yihiin ay meeshaas ku soo bandhigaan cidnana aysan ka xiri karin? bal aragtidaada commentiga nagula wadaag.